Somali Sudanes Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan, daweyn, qalliin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray. U doona daweyntaada oo sax ah. caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wix. Si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta Kalamaan, fadlan subscribe saar YouTube-keena Kalamaan. Arkalamanay qalala sadagalba loo qiildayaya qimihi nolosha la qasaarinaya qalad lagu sahaya yamaro hayta kama iyo kasba lagu kasba koofi madaxeede ninkii kaara haystana taladu waa ku keligiis Ahmedo waxa la yiri qandhahaysa qasba qasku beeray waxba isqasaya qaanuunkii la qoonsay sayax qarintiisa rag baa ku qarwaaya aryadaha Kalamaanay bariga carradu waa qasay labanay ma koontoon saano kadiban gacaankii koobiyay rabna ma koontoon saano kadiban gacaankii koobiyay rabna war Abdullah dadka gacaankii koobiyay raba arbacay u qabaane isniin weeye dharaartu inqilaabka socdaana fashil buu ku idlaan war adiga taa ka timaahina inqilaabkan ahad sana jirsadii madeeyo baarlamaanka hore aan isugu yeera miyaa tiri aqalkii sare iyo golaha shacabka xildhibaanadii laga doortay xagee la geynaya war haanyo aan hel qudba sareeda ka dhaladeen war kacaan koobiyeynta ku xasuustay saaka general Indhacda wuxuu yiri hadaan rabto inaad qaado wadada 69kii ogow waxa sii mari doonta 19kii aryadaha anigu waa yaabay madaxweyne Farmaajo Duraad mugow xafladda booliska ka qudbayhay waa kii yiri ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda maamul goboleedyadu doorashada meel fiican ay ku wadaan isla hamiinkii saqda dhaxana waa kii yiri ra'iisul wasaaruhu doorashadii waa ku fashilmay xala saqdii dhaxana waa kii yiri shaqadii waa ka joojiyay kadib markii musuqmaasuq lagu tuhmay marka saddexdaas war isma qabtaan see wax u jiraan war ciyaartu isma gordaasana daba guura leere fadu hoon ka fadu waan farkadaarkay kii warkaas waa la isla soo dhaafay saaka kaariyaala ku gurgurtaa leere xafiiskii iyo gurigii ra'iisul wasaaraha ma amarkii madaxweynaha qaadadiida warta ama ha qaata ama hadiide yaa ka sugayba hortaan waxaan aad ula yaabanahay dadkan le madaxweynihii baa inqilaab sameeyay yuu inqilaabaya asagaba madaxweynihii warnimo anigu waxaan maqli jiray qofkan waayuu wax barin waagii bari waa uga daraa shamsay waa runtahay oo anna waxaan maqli jiray wageerey waa la yaab wageer jacayl waalani waa kan war halku dhiga maanta wuxuu yahay doorashaha afgambi maya waxaana sidaas khudbadiisa halees uga dhigtay ra'iisul wasaare Rooble maanta markii ugu horeysay khudbadiisa wuxuu ku bilaabay hadal aan looga baran oo ah madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna sii raaciyay tilaabooyinka uu qaaday waxay la mid yihiin afgambi dhicisoobay oo lagu doonayay in lagu burburiyo dawladnimada Soomaaliya war madaxweynihii hore waa rooneeda wuxuu kala yiri Farmaajo geesu istaag musharaxiinta la mid noqo tartiib u tartan war taliya digtoona baan maqli jiray madaxweyne digtoona miyaa ka dhacday war ra'iisul wasaaruhu waxa kale maanta yiri dhammaan ciidamadu waxay ka amar qaadanayaan xukuumadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha taliyihiidana talaabaanu ka qaadaynaa sharcigana waa la tiigsanaynaa war Rooble waxa kale uu yiri shirkii lagu ballamay waa sidiisii dhammaan madaxda maamul goboleedyaduna way imaanayaan musharaxiintana waxaan xasuusinayaa shaqada aan qabanayno waa doorasho ee xulasho maaha doorkii uu gurtooda rifowka ku lijeedaayay warka Rooble sheegay madaxweynaha ma qabtee miyuusan hadlin madaxweynuhu oo ka jawaabin caawa saqda dhexe macali jaab ku jira sheegay warxada ma fahamtaane waqtiyada waa la kala qaybsaday habeenkii Farmaajo u shidan tahay maalintiina Rooble aryadaha anigu waxaan idin weydiin lahay xarunta ayaa ku jooga xog xisaab la'aan oo xuja xukunkii yaa ku heesta xog xisaab la'aan oo xuja Abdullah wow ta ku tabtay hata kor Muuse Suudi wali aray hayehe Maxamed oo soobax ku soo bixi ma madaxweyne war ma hayside حاجي موسى ومعقالي سيوتا هدو مرنايا ديار كويا أو سنتركي ما تصراد من الجرى ورما صراد ما أنت واحد ليه وحويري وحن قصة نقنا قوتي أنزيد بلوت كهر جيل كو قيبين هيني وحنا نقصه عليه ويري فرماجو أريادا هيس دالنا لا صدق البا لو غير دايا قيمه نولوشا لا قصارنا يا قالت با قالت لغو صحيا
hayaa warar ma haysaana qalalaasihii la qabooji ma baraf baa loo soo iibiyey bogsho buraad la gurugay mukayfaa loo shiday maanta markay xaaladdu xumeed ay gaadhay meel halisa oo car iyo car ay marayso ayaa waxaa soo baxay oday nabadoona xasha ma tanaasul badan nabadoonkii madaxweyne farmaajo tanaasulay war ma nabadoonkii geeska Afrika baraadan abiya ku soo baxay afa wargi arintaha faragiliyay war Mareykanka iyo Ingiriisku waxay dhaheen ma aqbalayno qalalaasa maanta laga soo biyo Soomaaliya warnimay anigu waa yaabay madaxda Soomaaliya ma beesha caalamka dalkooda uga naxariis roon wareedha warka hayga walaaqinina nabadoonka maanta soo baxay waa Mahdi Maxamed Guuleed oo maanta cadeystay inuu khadar yahay yatakabbaru di baarlamaani abaarad ma yiri asaga iyo taliyaashii ciidamaduna maanta waxay muujiyeen mas'uuliyad iyo lixajalo waxayna ku guuleysteen inay kala diraan ciidankii la dulgeeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo gurigiisa nabadoon khadarna wuxuu yiri anigu waxaan ahay tabliiq siyaasadeed labadooda ee dalka ugu sareysana waxaan u soo jeedinayaa inay dalkiya dadkaba u turaan oo caymadiyaan oo Mahdi maanta wareegii koobaad ma ka laabtay warnimayo waxa la yiri madaxweyne farmaajo maanta wuu dadaalayay cid uu amirtu waayay oo away alsayid faat guud faan haay lugumaan waaya leeri faat faka tahmiyatiri warnimayo hees carbeed oo dhahaysa ya doblahi wa shuq shufnahu fi nur al-ayn aan maqli jiray ra'iisul wasaari hore Xasan Cali Khayre wuxuu yiri waxaan shaki ku jirin in maanta dalkeenu galay xaalad mugdi ah waxaan shaki ku jirin in mustaqbalkeena iyo mustaqbalka ubadkeena la geliyay qatar aan indhaha laga qabsan karin aryaadaha madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri tilaabada beriga mukale madaxweyne farmaajo qaada dalkay halis geliye shacabka Soomaaliyeedna waa soo jeedaan adoogu indhaha kala qaado warnimaanuguna waxaan maqli jiray ragaan kugu wada gadaaman kuwaan garabkaaga jooga galliixtan hadduu bilowdo dhammaan way kaa gadoodin rabbaaya ma gala libaaxe taariikhda miyaadan goobin waranin waliba dheegi jiray gaashaan buurta amisom madaxda geeshka ku ilowday goon adagta nimankii la asaatan bay gurane galad lama huraan waa kuwa ciil ku gaamuraye warwar ma haysaana madaxweynihii Soomaaliland Muuse Biixi wuxuu yiri madaxweyne farmaajo wuxuu maanta Muqdisho ka sameeyay waad aragtaan tuuboosaas ka geystaan annagayna soo gaadhayo dhaawacoodii ku dabaybayna Hargeysa marka maanta madaxweyne farmaajo looma kala hadhin war madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo baryaawun bafahadiyo inay farmaajo ka hamaday geeka summa wallahi bas oo ku dhimanayti war qaran dumiska maanta madaxweynaha eedeynay waa badan yihiin beelaha uu yeeshay maanta yeesheen war beeshii lixaad shir bay u fadhidaa baa la yiri isboolariskay sheegi jireen talow iyo way qoonsan doonaan sida maalmahan wax u socdeen wax damiir ku qaadan kara maahan warmiyaha war ma haysiine taliyihii ciidanka madaxtooyada Xasan Aadan qalalaasii saaka dhaco shaqadiisii ku waayay waxaana la sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage saaka markuu xasarada ku soo baxay inuu yiri yaa ku amray falkan kadibna Xasan Aadan yiri madaxweynaha Odawaana markaas madaxweynaha u tagay ay yiri madaxweyne maadiga amray kadibna madaxweynuhu uu yiri maya war talaabada inta laagad Xasan Aadan kaligii kuma kicina miyaa lagu kaarta baxay war taliyihii ciidanka badaba markii hawshii loo diray uu fuliyo dantii laga gaaray qudhiisa waa lagu kaarta baxo shaqadii waa laga joojiyaa la yiri aryaadaha samigay Cabdullana wuxuu yiri hadam qaan waana ku dirqa dawaa uu naaqame dalkan hadam qaan waana ku dirqa dawaa uu naaqame dalkan warnabayow Soomaali dalkeedii dibadaba dhibaata ku haysatee waxa la yiri dalka Norway dad badan oo loo diiday sharciga dalkaas waxa ku jira boqolaal Soomaali ah dhibaato badan iyo xuquuq la'aan baana haysata war Norway madax badan oo Soomaali ah dhalasho ka haysatee maxay shacabkan ugu diidaysaa war Norway shidaalkeen inay soo saartana ma jeceshay dadkeenana ma dhalashaday u diiday warnimayo war ma haysin hay'adda qaxootiga iyo socdaalka u qaabilsan dawladda Norway oo magaceeda loo soo gaabiyo UDI ayaa waxay sheegtay in dadka Soomaaliyeed ee diidmada sharciga dalkaasi kala kulmay ay siinayso fursad dalkooda dib ugu soo celinayso kadibna ay siin doonto maalgelin ay dalkooda wax uga soo saartaan marka qofkii la yiri dalkaada lagu celinayaa
dhaqaalana waa lagu siinayaa oo waa lagu maalgelinayaa maxaa laga hadleeyey aryaadhaha hay-adda ka socota dowladda Norwayne minay dadkan iyo noo keenta lacagna ugu darayso waxaan ku diidaynaa qofna dalkiisa looma dhaamee cabdullow dadka Norway sharciga u diiday aad kamid tahan u malaynaahe cabdiwahaab saciid oo hay'addaas arrimaha qaxootiga kala taliya wuxuu yidhi halkii inta boolisku qabto lagu tarxiili lahaa hadda fursadan ka faa'iidayso oo isdiiwaan geli war carabtu dadkeena ay maalin walba soo tarxiisho maxay dhaqaale ugu kaalmay wayse ilaan cidi kama hanti badneen war shamsi olool haddii dheregti ka baadata aqlima leh war kalamaanay waxaa la yidhi wax ka duwan wixii loo qabo way asanaad tahaye waa la sharaka weyn maanta taad heedha wada tahaye waa liyahay adigu waalantaye waxaan ku weydiiyey ma og tahay dad wada waalan oo adiga kaa waalan inay waabta joogaan runtaa keentay waalida war inqilaab maya doorashaha abaa lagu yidhi maxaad la xiiqaysaa adigu ma waalanta warnimo waali waxba ha isku aadaynina ragga dhanaa waalane war dumarka miyaa fiyo markaa ragga wax ka sheegaysid haddaad fayawdaha gurigaagaad fadhi laheed qalalaasa dagaalba loo qiirdayayaa qiimihii nolosha la khasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa